qarniga xilliga sanadka Franka la wali waayay isaga iyo xiddigtiisa yar ee hodan hadiyad qaaliya wada hadiyadana waxay leeyihiin surprise-ka lagu talagalay caawalkan maxaa yeelay waxaa la arki jiray Frank imaada oo heesa kaliya laakiin dayac wuxuu noqday Frankii ugu horeeyay ee heesii hadiyad isku wada sida daraadeeda sacabka la yimaaday dayac iyo gabadhiisii hodan hadiyad qaali ay keeneen oo surprise ah oo ay guddoonsiyeen Misol waana wax markaas iyada ay muteysatay waxaana leenahay dayax aad baad u maasan tahay maadaama aan noqotay Frankii ugu horeeyay ee heestii hadiyadda isku dara soo dhawo mar kale walaalkay Najiib aadan Najiib waa mahadsan tahay waa salaamay dhammaan dadka qiimaha badan salaamay dhammaan dadka qiimaha badan ee halkan isugu yimid ee dhalinyarada ah ee gabdhaha iyo wiilasha bale sidoo kale fanaaniinta qiimaha badan ee iga waaweyn ee halkan isugu yimid walaalkay Libaan Dalmaag walaalkay Digbiyo sidoo kale walaalkay Samiir Daacad isagana waa salaamayaa waa u hambaleynayaa walaashay Mrs. Wall waxaan leeyahay hambalyo bay ilaahay maxaa la isheeg wax walba jeceshahay ha ku siiyo hamigaaga farxadaada ilaahay ku fuliyo waana ku faraxsanahay annaga oo qoys ahaan inaan uga soo qayb galno xafladan oo aan sababteedu tahay inaad marna habaryar tahay marna dumaasho tahay marna inaad adeer tahay saddexdaas darajo ku imaanay wasalaam walaashay Sam oo ayadana garabkayga taagan waa maxaa la isheeg hadiyadda aniga hadiyaddeeda afka waaye hees waaye hadiyadaha labada ah midna waa tii farxiyo aniga waday qodana hadiyaddeeda way ku keentay aniga laakiin hadiyaddeeda waxaa waaye inaan heeso waxaan ku qaadi doonaa laba hees oo ammaan ah sharafaa leedihiin ruxaantii caawa waa habeen farxad badan waa habeenkii boqortooyada waa habeenkii boqoradda gabadheena Mrs. Wall shacabkii dheerada oo siin dhammaantiin marka hadda aqoonta la soo galay waxa arkay jaam fara badan dadkii oo dacwadaas haystay ilaa xagaas waxaa jirto meesha xalfadii walaasha u socotay show isku waday ruuxantii gabadh Soomaaliyeed oo fiican wanaag badan qalbigaaga aad weyn marka malyan waxa ku jirnaa malaayiin marka guuleysa kale walaasha aad ku hambalyeynaa marka sharafka caawgeeska soo dhaw xafladda ka wadahay وكل حلقة سوف ولا عوينا شرف الله قولي سبب ما يحاول إيشا معلم أنا جاكرتا نيجي شروق هذا إيشا معلم أصحابتا والسلامة رمان مرت الشرف كميشا كسوق الشيء كل وحاول ماذا حمل قصة لا تعطى إنه جرم ماما لينا meelo Yacquub joogo nimcahayba ay joogto kuleeyna ka hadlo ma banaana marka waxaan leeyahay meega intaan qabsanin oo bulshada aan hadal la wadaagin meega waa la kala leeyahay nimca stage ku soo dhawaad soo dhaweyn nimca soo dhawaad jeclaan qayb gashay xafladan Swall TikTok YouTube waxaan iyo beej dad ay way joogaan dhamaantiin aalada islaamay marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qurux ku dhiigle ma sha Allah karaamad mikrofon u leeyahay qof og waaye way fiican tahay in isseeyo qofka ka horeeyo shaqada ugu horeeyo inuu ku ciseeyo way fiican tahay laakiin hadda aan ku fasaxa ana kadib Allah horta waxaan aad ugu faraxsanahay dhammaan daawadayaasha ka soo qayb galay xalfadan quruxda badan horta magacii masiibo mar bay baxaano mar baa dad la baxay Mrs. Wall halka malyan hore u qaadatay waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaa dadka waqtigooda noo huray waayo waqti wax ka qaalisan male walaasheedu waxaan ku leeyahay hambalyo malyan waa gaartay kan kalena wadadu ku soo jiraa mar baa dad la baxay Mrs. Wall teeda kale waxaan u mahadcelinaa wiilasha sharafta badan iyo gabdhaha umaleysay Irish iyo Turkey iyo Scottish anaaba wareereen ma ano leeyahay ma u baxay marka waxaan leeyahay hambalyo Mrs. Wall iyo dhammaan marti sharafka meesha ku soo qayb gashay waxaan leeyahay waqtigaa idin wacnaado
maalmuhu waa isku mid balse dhacdooyinkay ku kala duwan yihiin dhacdadan quruxda badan jawi qurxoon habeen wanaagsan aan wada qaadan nimco iyo welcome thank you qurxdiile markale muqdisho kusoo dhawaan kulana ina qalo casho kii aad jeceshahay aan ku sameyn waayo qado sharaf anoo ah nimcaheeda official youtube aan ku soo weynaa maanta aad qabsanay insha Allah ku iman doona soo hambalyo kuleeyahay ku warayso marka waxaan ku sheegaa ashwariyadeeda Soomaaliya because waan naga bareejeysay adduunka naga bareejeysay maadaama aad 1 milyan qurux intaba aad isku keentay waxaan ku leeyahay dadaalkaaga okay waay soo cusubkiis ku sii leeyahay tahay dadaalka meeshiisa ka sii wad maalin markii laga jabsaday TikTok wala waa kulooyay because qofka wax badan oo intaas ka soo shaqeynaya markii si fudud looga carqaladeeyo wallahi oo inta ismarka arkay anoo waa looyay dadka ku soo dhareynayaan kamid ahay inuu ku soo laabto marka waxaan ku leeyahay 2 milyan waa gaari doontaa insha Allah dadaalka meeshiisa ka sii wad buubuun iska qabsida xoogaa iska ilaaliya Soomaali walaalo way maanta ama wallahi magaca Soomaali maadaama aan hidaha iyo dhaqanka wato waa Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay idinkana garab istaag aad soo garab istaagteen miswal aad ugu mahadsantihiin dhammaantiin wiilal badan oo TikTok-gooda iyo YouTube-gooda aan taawado aan caawinta ugu wada jeeday maasha Allah aan bariyaa dhammaantiin inuu leeyahay miswal mar kale aan bariyaa ku leeyahay ولا شيء مع مسوال هذا وامبلينا هذا وفرحسنا هنا الملين قارتي حبيبتي انت سينك بدل كورجينا ثانك يو مع بدل هذه نسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو حفلة آدي آدكو قرح بدن أو لا شيء قرح ليدة مسوال إنك سوقف قال يعني وحيته أنا وما أنت قول استوكلة تنفانتين هذه أنا أبوهم بلينا ولا شيء مركو واد مر لبعض مرسد حد 2 مليون كبدنا كوري جنة مسوال أرون وأنا خون كرتام فانتي بكا حنبلي أقول لي عاو فرح حفلة هذه إنك سوقف قال وكسر رحم مخدنا آدي آد ورجينا وين إنه قتم فانتي ورترونا هانتي مرة ربي حربي حفلة هذه يعني بروبلمية يرجران درتي هذا أو باخذ لكن سيبه حفلة هذا مكا آدياد وكوهم بلينا أنا كل هذا اللي اسمه في عنا سيدا أكتهين قصر أيوة كفر حسنا مش سوى الحفلة هذا ونبيل كبدنا كاسو جينا إن شاء الله هم بلي حبيبتي أنا مش هي هم بلي